الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد داود يا المركل waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni nutrition ka diet ka ama cuntada iyo nafaqada taxanahan videogan waa taxanaheeni ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan dhowr maalmood ayaa naga xigta waxaan ka baryaynaa Rabbi subhanahu wa ta'ala si caafimaad leh in uu nagu gaarsiiyo waxaan ka hadli jirnay taxanahan cuntooyinka caafimaadka qaba ee la cuno bisha barakeysan waxaan ognahay wadankan aan ku noolnahay wadamada la midka qofka inuu soomo 17 saac ama 18 saac maadaama maalintu ay dheer tahay marka waxa loo baahan yahay qofka markuu soomayo oo afuraayo ayaan ka wadaaye in uu xaqiiqdii uu cuno cuntooyinka rabbaaniga ah ee naturalka ah ee dabiiciga ah ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay in uu ku noolaado jirkiisana energy fara badan ay siiso maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo biyaha qumbaha faa'iidada ay leeyihiin qumbaha hadda aan haysto biyaha ku jira ee aan ka cabayo faa'iidada ay leeyihiin ayaan rabaa in aan ka hadlo qumbaha biyaha qumbaha faa'iidada ay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa in ay leeyihiin ay ku jiraan maado la yiraahdo electrolytes waxa waaye maado ku siinayso energy fara badan waay hadda biyaha energy-ga ee aan ka soo iibsano dukaamada waxa laga koobiyay asalkoodii waa qumbaha marka waxay ku siinaysaa electrolytes-ka ku jira markaad cabtid qumbaha waxay ka dhigayaan qof fudud qof shaqadiisa qabsan kara qof energy ma garanaysaa leh qof waxa waa socon kara qof aanan daaleen qof ma garanaysaa wixii loogu talgalay markaas qabsanaya faa'iidada labaad biyaha qumbaha laga helo waxa waaye wuxuu leeyahay weight loss ama hilibka zaa'idka ah ee calooshaada ama jirkaaga saaran oo jaraya waxaan ku hubaa biyahan hadii aad wax walba cabtid marka soo kacaysid oo dhowr maalmood aad cabtid faa'iido weyn ayaad iskaga arkaysaa marka waxa waaye wuxuu leeyahay biyaha qumbaha waxay leeyihiin faa'iido ah in hilibka zaa'idka ee jirkaaga saaran ay ka jiraan ama caloosha mataqaana zaa'idka ee mataqaana aad leedahay ay ka jiraan marka weight loss-ka waa uu fiican yahay faa'iidada saddexaad uu leeyahay biyaha qumbaha waxa waaye jirkaaga wuxuu ka dhigaa jir nadiif ah oo fiican oo clean ah oo clear ah oo ma garanaysa uma baahnid inaad samarisid wax cream ah marka ii sheeg biyahan qumbaha hadaa cabtid jirkaaga waxaad arkaysaa aanan u baahnayn wax cream inaad marisid oo liisho ah oo ma garanaysa aanan ka soo baxayn nabro oo si fiican u dhalaalaya sida ilaahay ugu talagalay ah faa'iidada afaraad oo biyaha qumbaha hadii aad cabtid aad ka helaysid waxa waaye biyaha qumbaha waxa waaye waxay ku soo celinayaan biyihii jirka u baahnaa marka waxa ognahay maalinta ramadaanka marka lagu jiro qofka inuu soomayo tusaale ahaan oo kale qofka hadii uu intuu biyo orange cabi lahaa ama biyo qasan uu cabi lahaa biyaha qumbaha uu cabo waxay awoodaan in markaas waxa waa biyihii ka baxa jirkiisa ilan dehydration ayaa qofkii ku dhacay in ay u soo celiyaan ayay awoodaan marka walaalayaal biyahan qumbaha faa'iidooyin badan ayaa laga helaa yaanan la dhaafin waxa waaye mar walba ha lagu dadaalo vitamina fara badan ayaa ku jira minerals macdan ayaa ku jirta cuntooyinka lagu tilmaamo waxa waaye micronutrients waxa waaye cuntooyinka laga helo vitaminka cuntooyinka laga helo mineralska macdanta cuntooyinka laga helo antioxidants-ka waxyaalaha jirka cadowga banaanka uga imaanaya ka difaaco ayaa laga helaa marka waxa waaye aan ku dadaalno bisha Ramadaan soo iibso markaad u baahnaatid biyaha cab marka salaad u istaagaysid cab markeed habeenkii ma garanaysaa aad suxuuranaysid cab faa'iidooyin badan ayaa laga helaa intaan cajiladan ku xiga aan iskaga arki doono waxaan ka rabaa cajiladan dad kale inaad la share gareysaan ama la wadaagtaan waxaan kaga tagayaa sidaas islaanta islaamka oo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh